intaan ku dhashaan wadanka ku dhalo intaan ku dhaqmaan dhulkani ku koro dhanaba kama baxo ma dhaafi karo ku dhawaad 7 doox oo ay biyuhu maraan ayaa wadadan ku yaala dooxyada dacar buruq iyo awbar khadle ayaa ah kuwa ugu khatarta badan waxay xilli roobaadka iyo waqtiyada uu soconayo uu qaadi jiray gaadiidka bulsho badan ayaa nafahooda ku waayay halka kuwa kalena uu galaaftay hantidooda madaxweyne biixi ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay 28 bishii labaad ee sanadkii 2019 maanta halkan waxay isugu nimid inaynu markhaati ka noqono dhagaxdhigga dib-u-dhiska iyo ballaarinta jidka berbera wajaale oo loo yaqaano berbera corridor jidkan dhererkiisu wuxuu noqonayaa 250 kilomitir kani waa mid ka mid ah dariiqyada halbowlaha ah ee ku yaala jamhuuriyadda waa dariiqa Soomaaliland ku xidha dalka Itoobiya waana jidka u dhaxeeya berbera iyo wajaale waxaa maraynta ugu badan ganacsiga Soomaaliland wuxuuna lafdhabar dhaqaale u yahay dalka waa marinka ay adeegsadaan gaadiidka xamuulka ah ee xambaara badeecadaha dalka Itoobiya ee ka soo dega dekada berbera waxa uu ka mid ahaa mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay Soomaaliland u maalgelinaysay dawladda Imaaraadka Carabta dariiqan oo ku kacay $112 milyan dhowr jeer oo hirgelintiisa dib u dhac ku yimi kadib madaxweyne biixi dhankiisa intii dhismaha wadadu socday waxa uu ahaa mid kormeer iyo korjoogteyn joogto ah ku sameynaya dariiqan muhiimka ah ayna ka goonayd dedejinta iyo dhamaystirka marinka ugu dambeyn Soomaaliland waxay hadda yeelatay waddo casri ah oo la mid ah kuwa caalamka ee nabadgelyada iyo xasiloonida loogu kala goosho intaan ku dhashaan wadanka ku dhalo intaan ku dhaqmaan dhulkani ku koro dhanaba kama baxo ma dhaafi karo درجة قنيبان لحديث وخاين